dhakhtarkii baan u tagnay weynaa wuxuu yidhi 15 cishaan noolaanaysa aniga Hyderabad transit oo ah inaan saaxiib nahay oo aan gacaltooyo iyo saaxiibtinimo badan ku toomayay aynan naga dhaxaysay dhab ahaantii oo igu yidhi Delhiba ka soo degay Delhi markaan ka soo degnay migration baan qabtay 2 cishaan la xiray oo nala soo tarxiila waxaana lagu soo tarxiilay garoonka Hargeysa waa dad inaga tago hebela waa dad aynu garanayno oo ehel iyo gacal iyo xigta haddana aan jixin lahayn oo dugaagnimada mar walba ay xaggooda ka tahay ama ay ka sarrayso waxaan ku noqday Hindiya halkaa Hindiya markaan tegey waxay dhakhaatiirtu way eegeen beerkayga baadheen nasiib darro waxaan ninkii markii hore dalkii naga dejiyey nakhalday hagardamiyey ayaan weli gacalnimo ka dugsanayaa oo aan ku dega beerkaygii oo laga daweyn infectionkii iyo xanuunkii hore oo sidiisii isaga dhooqaysan ayaa beerkii cusba la dhex dhiga Hindiya markaan tegey waxaan baasaboorkaygu waxaan leeyahay fiisaygu ahaa Hyderabad aniga Hyderabad transit oo ah inaan saaxiib nahay oo aan gacaltooyo iyo saaxiibtinimo badan ku toomayay aynan naga dhaxaysay dhab ahaantii oo igu yidhi Delhiba ka soo degay Delhi markaan ka soo degnay migration baan qabtay 2 cishaan la xiray oo nala soo tarxiila waxaana lagu soo tarxiilay garoonka Hargeysa markaan garoonka Hargeysa nimi waxaa halkaa ay noqotay inaan safar dambe galno haddana safar dambe abaabulno haddana safarkii dambe abaabulnay oo tii xaaladda iyo xamaasaddu iska kacsanayd waxaan galay ololihii waxaan isu maray gobollo kala duwan maadaama aan xisbiga waddani ahaa waxaan dhexda u xidhay sidii aan xisbiga ugu guulaysan lahaa dabeetana asalna waxaa laygu yidhi socodka yarayso weliba socodka gaadiidka ee ruuxan kale yaa habadsan sidoo kale waxaa laygu yidhi cuntooyinka aan ka kantaroollo inay dufan ka lahayn iyagana cun waxa lay dufan kale ha cunina ka fogow hadday jeer anigu oftiis ka socda ama rag dee meel maraya wax u diyaarsanay ma jiro wixii magaalada yaallo bay cunayaan sidaa daraaddeed baan wixii iga soo horbaxana way cunay safarka halka loo baxana walba taasi waxay keentay fiberkii ama cirrhosis-kii 50%-ga beerka marayay inuu gaadho 85 halkan markaan ka tegey sii kaca halkan markaan ka tegey waxaan ku noqday Hindiya halkaa Hindiya markaan tegey waxay dhakhaatiirtu way eegeen beerkayga baadheen nasiib darro waxaan ninkii markii hore dalkii naga dejiyey nakhalday hagardamiyey ayaan weli gacalnimo ka dugsanayaa oo aan ku dega inaguna waad garanaysaa Soomaali baynoo marka Maxamed Ducaale Burco ugu imaado ama Hargeysa ugu imaado oo dhakhtari soots wax weyn maaha laakiin show saaxiibkii waa dilaal wuxuu qaatay kaadhkii waxa la baasaboorkaygii dhakhtarkii baan u tagnay weynaa wuxuu yidhi 15 cishaan noolaanaysa 15 cisho ayaad noolaanaysaa haddii beerka lagu qalay haddana $35,000 ayaa lagaga bahay haddii beerka la bedelayo oo aad emergency ku bedelaysa 15 cisho gudahood dee nin iska macallin ahaa family ahaan ka soo jeeday family aan haysan dee 30 kun ayaan ahaa laakiin waxaan haystay dad bulshada kacday iyadaa isugu kay tagtay dhammaan wixiiba aan toddobaad ahayn ayaa in ka badan lagu soo ururiyey sidii baan qalliinkii ku gala intaanan qalliinka gelin dhakhtar wanaagsan ayaan dabcaan isku qalo saaxiibkaygii wanaagsanaaye aan ku soo hirtay baasaboorkaygii buu haystaa dhakhtar kastiisa isku diiwaangeliyey haddaan
translatorka loo kahaysto waxaa loo dhahay translatorkaas isku diiwaangeliyay baasaboorka oo isaga turjumaan kuwa turjumaan kale lama ogola waa isaga isku soo qorayeen wax anigu nin iska ciirciiraya maaha waxaan ku idhahaa badanaan ka haysan haade fahamku uu iska yarya laakiin yuu kaa dhicin dade maadaamaan heedada ahay dee qof xanuunsanay ayaan ku ii yahay oo ada dee magaranaysaa iska warhayo oo aad isi ogay dabeetana ninkii dhakhtar buu damcay heshiis in la galo dhakhtarkii uu damcay inuu qasab iyo jijoobi u qalo dhakhtarkii kale aan dhan wala dhamaynay wuxuu sameeyey baasaboorkaygii ayuu tuuraa